tuuladan aadka u yar waxaa joogi jirtay qaaqtaasi waxay nacabeen dumarka timaha dhaadheer. Markii ay aragto dumar timo dhaadheer ayay habeenkii u imaan jidhay oo ay ka goyn jidhay tinta, markaas ayay iska tagi jidhay oo aadi jidhay meeshii ay degneed. Dadku subaxdii ayay iska wareysan jireen oo dhihi jireen, alla ani tintii waa laga goostay, waa maxay laakiin maxaa iga goostay? Markaas ayay kala seexan jireen. Subaxdii dambe nin ayaa arkay naagtiisa oo tinta shalaysanaysa, wuxuuna ku yiri, naaheedhe maada waxa ka warqabin, ma ogid miyaa inay soo baxday qaaq nacab dumarka timaha dhaadheer ee tintaada qarso? Waan kuu sheegay ninkaygiyow, ani waxaas ma aqaan mana rumaysani ee aan is aragno. Ma aaminsaniba in qof ii soo dhawaanaya habeenkii oo tinta iga jaranayo. Naagteedii anigu waan kuu sheegay, is ilaali ayaan ku dhihi lahaa. Markii uu habeenkii madoobaaday sidii caadada ahaydba waxaa soo baxday qaaqdii ayadoo weliba xanaaqsan oo weysanayn dad timo dhaadheer ama dumar timo dhaadheer. Isla markiiba ayadoo meel maraysa waxay daaqada ka aragtay naag tin dheer. Naagta ayay u soo gashay, waxayna rabtay inay tinta ka goyso, balse way ku qabatay wayna soo kacday. Waxayna ku tiri, naaheedhe maxaa tinta iga goynaysaa? Ma tinteeda ayaa ka heshay? Qaaqdii ayaa cararday oo nacbeed in la qabto. Naagtii ayaa soo qaaday raadkii qaaqda wayna soo daba gashay. Ninkii qabay naagtii asaguna wuxuu ka waayay sariirta naagtiisii, isla markiina raadkeeda ayuu soo qaaday. Wuxuuna arkay naagtiisii oo keynta joogta, wuxuuna ku yiri, maxaa kugu dhacay? Waxayna ku tiri, waa run waxaad ii sheegaysay naag qaaq ayaa jidha oo dumarka timaha dhaadheer nacab oo tinta ka goynaysa. Ninkii ayaa yiri, waxaas ka wareysanaynaa marka xaafadda aadno ee namari halkan waa kayne yaana nala igu cunina meelahan bahalaa jooge inamari. Wayna tageen waxayna aadeen xaafadda. Markii ay subaxdii qorraxdii soo baxday, raggii magaalka ama dadkii magaalka ayaa iska wareysanayay wixii xaalay ku dhacay gabadhii timaha dhaadheereed. nin meeshaas odayaasha la shireeyay ayaa waxa uu maqlay markaas uu maqlay ayuu wuxuu ku laabtay xaafadiisii oo uu siiri ogeysii naagtaada timaha dhaadheereed. Wuxuu ku yiri naagteedii iska daa timahan aad dayactiraysid oo aad qurxinaysid oo dhaadheer iska jarna, hadii kale naag tima dhaadheer ayaa soo baxday oo la yiraahdo khalaasna timaha ay ka jari doontaa, iska ilaali. ninkeygiyow hawlwalan ayaa ku tiri naagtaas iyo aniga ayaan is arkaynaa markaas aan aragno wax iga qaado. ninkii ayaa ku yiri haye waayahay waan arkaynaa. waxay ku tiri anigu timahayga waa jeclahay laakiin waxaad sheegaysid ma garanaya ani. wuxuu ku yiri adigu is ilaali kaliya, hadda waxaan qabanayaa guriga saaxiibkay. wuxuu aaday guriga saaxiibkiis markaasuu ku yiri saaxiib ka waran gabadhaadii, ka waran xaaladeedii, timaheediina ka waran, hadda caadi ma tahay? wuxuu ku yiri niyow naagteedu way xanaaqsan tahay, wayna iska murugootaa markasta ay muraayad iska fiiriso oo waxay xasuusanaysaa timaheedii ay hadba meel u rogo jidhay oo dhaadheeraa. ninkii wuxuu ku yiri saaxiib iska hagaagaysaa, xaaskaagana caadi bay noqonaysaa, timo qurux badan ayaa soo baxaya, laakiin animadeeda way dhaga tirtay oo way maqli weyda waxaan u sheegay. ninkii ayaa xaafadiisa iska soo qabtay oo habeenkaas baqdin uu ka qabo naagtii oo seexday barandada guriga. cabaar ka bacdi wuxuu maqlay qaylo